wadahadallada la qorsheeyey in ay Djibouti ku dhex maraan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland waxaa dabin siyaasadeed isaga saaraya madaxweyne Farmaajo sida uu shaaciyey Senator Mustafa Qodax. wadaxaajoodiyada Itoobiya ay soo qaban qaabisay isla markaasna Mareykanka korjoogto ka yahay waxaa la filayaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Cabdi Biixi ku yeeshaan Djibouti maalinta Axadda ah. Mustafa Qodax oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa xoojiyey ama sheegashooyinka ku saabsan in wadahadallada ay yihiin kuwa sumcad loogu sameynayo madaxweyne Farmaajo oo wajahaya fashil hogaamineed xilli lagu wado in ay xubno ka socda beesha caalamka ka qayb galaan. mudanaha oo qoraal soo saaray ayaa carabka ku adkeeyey in hogaanka dowladda federaalka ah aysan daacad ka ahayn shirkaas furmaya maanta. haddaba qoraalka uu senatarka soo qoray ayaa ku bilaabanaya sida tan: madaxweyne Farmaajo wuxuu ku jiraa dabin siyaasadeed, waxayse u egtahay in uu si taxadar leh uga fikiray sida uu uga bixi lahaa. looma baahna inay Somaliland dhabar jabiso mucaaradka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ee isbedel doonka ah ee la daala dhacaya beenta iyo propagandada xukuumadda nabad iyo nolol ee aan social media dhaafsiisnayn. waxaan u arkaa ilduuf siyaasadeed inay Somaliland ka ogolaato Farmaajo wadahadal xilli ay xukuumadda Soomaaliya u hadhay muddo 6 bilood ah. kasakow muddada xilkeeda dowladda Soomaaliya ee gabagabada ku dhow, Farmaajo waxa uu bartanka uga jiraa mawjado khilaaf siyaasadeed oo ay adag tahay in uu ka baxo markaad eegto duruufaha ku xeeran iyo fursadaha uu haysto. wadahadal kasta oo ay Somaliland iyo Soomaaliya dhex mara waxaa sal u ah in uu haysto kalsoonida xisbiyada ka jira labada dhinac. dhinaca Soomaaliya, maadaama ay dowladdu tahay dowlad federaal ah, waxaa muhiim ah inay ugu yaraan maamul goboleedyadu kalsooni ku qabaan dowladda federaalka. waa haddaanayba si toosa ugu lug lahayn wadahadalladaas, taasoo aynu maanta ognahay halka ay kala marayaan madaxweyne Farmaajo iyo inta badan madaxda dowlad goboleedyadu. dhinaca Somaliland waa muhiim in xisbiyada dalka ka jira laga talageliyo wadahadal kasta ama ugu yaraan loo bandhigo waxa socda iyo aragti iyo talo in ay ku yeeshaan. markaan dib u yara raacno afcaasha xukuumadda Farmaajo, ma laha taariikh wanaagsan oo ah dhinaca walaaleynta iyo isu soo dhoweynta dadka Soomaaliyeed. waa xukuumadda aalaaba ka shaqaysa fadqalada iyo cunfi xaasidnimo ka muuqato oo ay ugu dambeysay wareysigii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaal ku weeraray DP World oo mashruuc horumarineed ka wada Somaliland. wareysiga wasiirka oo aan marnaba u adeegayn isu soo dhowaanshaha ummadda. markaan dhan walba iska taagnay ama iska taagay, aniga aragtideyda ima muuqato wax haba yaraatee fursad ah oo waqti xaadirkan wadahadal uga jira Somaliland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo u baahan in Farmaajo laga hor dhaqaajiyo. taa beddelkeeda waxay fursad u tahay Farmaajo oo doonaya in uu indhaha ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa beesha caalamka ee sida dhow ula socda waxa ka socda Soomaaliya uu ka jeediyo kuna mashquuliyo mowduuc kale. waxaan hubaa in xalay oo keliya uu yaraaday social mediaha ka haystay nabad iyo nolol oo social mediaha u yahay garoonka diyaaradaheedu ka kacaan kuna soo degaan kadib markii mar qura lasoo tuuray wadahadalkaas, taasoo noqotay mowduuc lagaga nastay mashaqadii siyaasadeed ee ay ku jireen ururka ama xisbiga nabad iyo nolol. waana sida ay doonayeen. culayska siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo haysta waxaa ugu horeeya doorashooyinka qorshuhu yahay in ay dhacaan sanadka soo socda bilowgiisa 2021 oo aan weli lagu heshiin nooca la galayo iyo in uu ku fashilmay ciribtirka ururka Al-Shabaab.